muuse biixi oo hadda talada hayay Soomaaliland oo arrinka ogolaado hogaaminayana laftiisa u mahad celinayna raadarkana waqooyi way u ooman yihiin inay Soomaali weyn u yimaadaan Soomaali weyn waa u ooman tahay inay Soomaaliland walaalahood ku soo biiraan ayaduna waa loo oomay marka dalku waa isu oomay taasna waxa ku guuleystay Xasan Sheekh ruux kasto bini aadan oo Soomaali ah oo wax dareemi karo hadduu wax qabto wax qabashadiisii in lagu taageero u baahan yahay lagu dhiirigeliyo u baahan yahay hayraada haweenaad laga bilaabo madaxweynaha iyo kooxda onkod oo halkan ka heesaysay inta u dhaxayso dhammaan waxay u baahan yihiin taageero maxaa farxad ah marka dalkanaga 30 sanadood waxaa saarnayd cunaqabatayn Xasan Sheekh ku guuleystay waa nagala qaaday cunaqabatayntaas waxay ahayd mid hubeed waa nagala qaaday waxaan la gumownay oo dalkanaga uu la gumoobay oo ummadanada ay u baaba'day waxa waaye cunaqabatayntaas hub waay taasna hal la ogaado taas waa tii cunaqabatayntii waxaa soo hartay intay dowladnimada Soomaaliya jirtaba deyn lagu la yeelanayo mid kastoo jirtay deyn lagu lahaa tiina waa nagala cafiyay inkastoo marar badan qayb loo cafiyay haddana waa lagu guuleysto Xasan Sheekh ku guuleystay waa ugu mahadnaqayna mar haddii deyn lagugu leeyahay deyn kale ma qaadan kartid taasi waa midaas tan kale waxaan ku biirnay Central Africa leeyahay annaga Afrikaanana Central Africa qaybaheeda ganacsiga iyo isu socodka taasna asiga ku guuleystay tan kale oo uu ku guuleystay maxay tahay 30 sano dalkanaga waa kala barnaa waana kala maqnaa dowlad goboleedyadaaba kala maqnaa waladii Soomaaliland North yaa waxay sheegteen 30 sano inay Soomaali weyn ka go'een 60kii markii xornimada la qaatay afar habeen bay xornimada ku horeeyeen waa is ognahay 26 Juun waxaa ka qudbeeyay Allah iyo raxmo ninka la yiraahdo Maxamed Ibrahim Cigaal ninkii la dhihi jiray tima cadana gabay buu ka tiriyay habeenkii calan saarka maanta maalintii baan taagana qodbada Cigaala waxay ahayd waxaan raacaynaa Soomaali weyn sansa sharuud la'aan kana saar kana nasiib manusqaamow sareeyo manusqaamow balan siduu yahay eegno maanta sidii aan taagan waa ilaahay mahadi taasna waxa ku guuleystay Xasan Sheekh waxaan u mahadnaqaynaa ciddii ogolaatay midnimada Soomaaliya maanta in la isu keeno oo dib la isu wareysto oo dib la isugu yimaadana waa u mahad celinayna ka baqayli mayno ama inta joog ama xagga jiray waa xagga jiray waa soo kaana mid Ismaaciil ninkii la yiraahdo muuse biixi oo hadda talada hayay Soomaaliland oo arrinka ogolaado hogaaminayana laftiisa u mahad celinayna raadarkana waqooyi way u ooman yihiin inay Soomaali weyn u yimaadaan Soomaali weyn waa u ooman tahay inay Soomaaliland walaalahood ku soo biiraan ayaduna waa loo oomay marka dalku waa isu oomay sidii shalay laabaan maanta rajaynayna in lagu noqdo taasaa muuqata sifaalaheedii taas waa midaas onkod
tan markaan mahadcelintii ka gudbo onkadna waa u mahadcelinayna ciidankuna waxaana soo haya oo gaar noo ah feestadii ciidanka asluubta berri laga bilaabo waxaan magacaabaynaa guddigii howlaha ayaga ah ka shaqayn lahaa diyaarin lahaa sidii aan feestada ku mari lahayn waa bil waxaa ka haray bilna waxay tahay waa isla garanayna wax badan baan u baahana wax badan yaan u baahana aan noqono ciidan feestadoodii xusay oo lala yaabo dhibowga annagaa u raadinayna qalabkiisa dharkiisa kabihiisa wixiisa oo dhan annagaa raadinayna aad bayna u tababaran yihiin waana la wadaay waxayna mari doonaan feestaday mari doonaan waad arki doontaan wixii ka soo baxa meesha ayada keliya halkaan ma ahee kii gaalkacyana waa na sugaya intaa waxaa dheer in ay muuqato ciidamadanada waa inay muuqataa asli baana la yidhi anshuxuna waa inuu muuqdaa daacadna waa inuu u nahay dowladda aan hoos tagno oon ciidankeeda nahay warkayga intaanan kusoo gaabinaya waa dheereeyey soo dhowaada waxba inkama hadlaabayaan wanaag baad la kulmaysaan iyo fiicni iyo wixii ilaahay nooga soo qaado sanadka ina waa helaysa